اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. runtii waxaan rabnaa aniyo Axmed labadayduba waxaan maartay ka shaqeynaa amba aan dadka aan u sameynaa trainingiyo in la raadiyo in la baaro in la doono oo la barto wax walba barasho ay u baahan tahay annagu diyaarinta aan diyaarinayno casharadaas baan wax badan ka baranay wax badan ayaan ka baranay marka idinkuna inka badan bad ayaad ka heli doontaan insha Allah in wiilasha hays qoraan gabdho hays qoraan madarka ha dhageystaan meeshay doonaan ha joogaan koorsooyin online aan bixinaa bal baaro oo raadiya hadday wax idin ka ajabiyaan isqora ahla wa sahla وجزاكم الله خير. أحمد بن باقير. أدل ما سنتها يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وولادي أحمد جوهر بلال. هيئة هابي مارج أكاديمي سيدا هي بسوي شيء بالناس من الرو تببرو عن مركز كتببرينو لأن يرضى يدك واوين يدك حصليدا إسفهن كلا بدأ قف مركز وحن أوران لها رنتي qofku wuxuu u baahan yahay sida uu u diyaariyo waxbarashada kuriirkiisa meesha uu shaqada u doonan doono 12 sano sida uu u diyaariyo ayuu ugu baahan yahay qofku in uu diyaariyo oo barto nolosha qoyskiisa uu ku noolaan doono saas daraadeed waxaan oran lahaa meel kasta oo ka heli kartaan ka raadsada annaguna waxaan idin haynaa mid aad kula fahmaya luqadaadii diintaadii culture-kaagii waliba lagugu darayo cilmigii sayniskii maaragtay ku saabsana psychology biology iyo sociology on top of that diinta ayaa ugu wada horeysa walidalik had garan kartaa nabigeena kaleey salaam marka uu la hadlayo dadka in uu leeyahay guursada oo waliba gabadha marka laga hadlayo waxaad ku guursataa oo ku doorataa bidaati diin wiilka marka laga hadlayana laba aran buu sheegay nabiga kaleey salaam wuxuu yiri gabadhiina idha jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu diintiisa iyo khuluqiisa أو لسه فزوجوه فزرادت أنت ساندين هنا ولا ليال بارك الله فيكم أدب ما ستي سنة دعوتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي تلوينا لو سو قد بيه بارك الله فيسبوك أنا قال حريرة والناس انتين السلام عليكم ورحمة الله اللهم استر عورة. سمع علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال إلهي ما مهل سبحانه وتعالى مركل إنه سورة قليل إن أن هودك كلنا وقت جينا عادي أها همينك جمعها إن أن إسكوبرا رجنو هرومرنتا إيواناجنتا خويسك إيه قرية iyo labada qof ee gurigan yagleeshay ee dhistay sidii ay u heli lahaayeen guri raaxo leh ay ugu noolaan lahaayeen ilaaha subhanahu subhanahu wa ta'ala markale inaan hawada idin kala kulanno noo suurta galiyay ilaahay baa mahadle idinka laftigiina oo nabad qaba in aad nafiirsanaysaan hadda oo aad daawanaysaan ama aad nala socotaan jazaakumullahu khayran aad baad u mahadsantihiin waxaan aad ugu faraxsanahay idinkana codsanaya insha Allah inaad ila soo dhaweysaan macluumadeena qiimaha badan macluumaad hiba Umar Geelle oo mar walba heegan inoo joogta inay inala wadaagto wixii ay u arkayso in uu nafci leeyahay markaana uu anfacayo qoyska iyo guriga dhisan insha Allah ta'ala. walaalayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caawa insha Allah ta'ala si toos ah ayaan caawa idinku soo gudbinaynaa anaga oo London fadhina xarunta telefishinkan caalamiga Somali Cable ilaahay barakeeyo waxaan aad idinka rajaynaynaa insha Allah ta'ala marka aan soo qadimno in aad idinkuna aragtidiina aad noo soo gudbisiin oo aad nala wadaagtiin caawa su'aalo ayaan idin haynaa oo aan idin weydiin doonaa haddii alla yiraahdo sida ay idinla muuqatana waad nooga soo jawaabaysiin biidnillahi alkariim waxaan rabnaa marka caawa in daqiiqadaha soo socda ilaa 40 daqiiqo 45 daqiiqo haddii la yiraahdo inta aan ka gaadhno inaan wax isweydaarsano macluumaadkaana aan ugu talagalnay haddii la yiraahdo in nolosheena qoyseed nolosheena guriga
in ay wax u tarto ay wax kusoo siyaadiso insha allahu tacaala nafci iyo wanaag aan ka helo labada qof ay isku soo dhawaadaan moor ay noqoto mid qofka noloshiisii hore wax ka bedelaysa dhinaca wanaagsan ee fiican ee positive-ka. caawa marka waxaan rabnaa inaan dhammaystirno laba qodob oo hameenkii hore ee aan live-ka ahayn waqtigu uu naga soo gaadhay ama noo saamixi waayey inaan dhammaystirno. waxa weeyaan barnaamijka aan rabno inaan dhammaystirno caawa waa barnaamijkii ku saabsanaa luqadda lagu wada hadle lamaanuhu ay ku wada hadlaan oo ay u baahan yihiin inay bartaan. raggu luqad lagula hadlay leeyihiin, haweenkuna luqad lagula hadlo ayay leeyihiin. wax kastana nolosha haddaad rabto in aad ku horumarto ood ku guulaysato waxay leedahay luqad lagu fahmo oo lagu akhriyo oo lagu garto oo lagu maxaan ku idhahday yani looga faa'iidaysto. sidaas daraadeed luqadda jacaylka marka runtii jacaylkuna waa midda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka qalbigooda uu ku abuuray ee uu dhex dhigay. sidaas daraadeed dadka qaar waa laga yaabaa inay yidhaahdaan guryuhu jacaylkuma wada dhisna, ma diidanin oo ma qasbayno ma odhanayno qasab ilowba ilaa gurigu waa inuu ku dhisnaado jacayl. laakiin waxaa meesha ku jirta laba qof oo aanan isjeclayn oo aanan unan jirin attraction unan jirin oo aynan dareen una ka dhaxaynin way adkaanaysaa nolosha inay ku raaxaystaan. inay nolosha ku raaxaystaan way adkaanaysaa. waxaan rabaa marka walaalayaal baaraka allah fiikum kelmadii bilowga ee muqadimada in ay noo soo gudbisay insha allahu tacaala maclimadeena hibo faltafadali mashkuura. جزاك الله خيرا جزيلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي بما هذا سكلا ولا ليال اسكو كان مر لبادي مر صدحات با سدو ولا الكين شيخ أحمد إيدك وعاف ما تقبيان لك وعاف ما تقبنا إلهينا وحسين أو إيمانك إلهينا وأتكي الحمد لله. runtii waxaan rabaa inaan maanta aan ka hadalno baan xoogaa ka aan isku sheegi doonaa waa barnaamijkiinii horumarinta qoyska aad mar walba nooga barateen inaad Somali Cable naga daawataan jimco walba jimcayaasha qaarkoodna live sidan oo kale aad nooga daawanaysaan. marka maalmaha qaarkood live ma nihin oo waxa weeyaan waa recorded barnaamijku waqtigaas oo kale casharo ayaan idiin soo diyaarinaa oo in la wadaagno idinkuna waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee noo dhageysatiin. laakiin waqtiga aan live ka nahay oo wada hadli karno oo telefoonada la soo diri karo waxaan rabnaa walaalayaal inaan kala faa'iideysano oo wax isweydaarsano. annagu inaan wax idiin sheegno kama dhigna wax walbaan dhamaynay wax walbaan garanayna kama dhigna laakiin balligh anni walaw aayah abu nabi sallallahu alayhi wasallam qof walba wuxuu garanayaa inuu umada la wadaago uu sheego waa waajib saaran. marka waajibna saaran u baan gudanayna insha Allah in raaxada guurka iyo nimcada guurka iyo isfahanka iyo qiimeynta labada qof inay isqiimeeyaan baanu ka hadlayna wax kale kama hadlayna walaalayaal. dadka qaarkood barnaamijka waxay ku soo koobeen ay yiraahdaan jacaylun bay dadkani ka hadlaan. marka runtii jacaylku horta waa waxa aad ku nooshahay waad u baahan tahay in lagu jeclaado. hooyadaaba ku jecel oo waalidkaaba ku jecel oo walaalahaaba ku jecel oo asxaabtaaba ku jecel. marka jacaylku waa waxa aad ku nooshahay low uu dad qof uun ku jeclayn ciday doonta ba haatee ma noolaan karteen runtii ma noolaan karteen. marka jacaylku ilaahay baana jecel oo adoomihiisa jecel adoomihiisuna ilaahay way jecel yihiin. waxa weyn rasuulka ilaahay baan jecelnahay isna ummadiisa uu jecel yahay. waxa weeyaan waxa soo dhan makhluuq oo dhan ba jacaylka u baahan. laakiin inaan run isku sheegno ayaan rabnaa walaalayaal. haddaan Soomaali nahayna reeraheenan dhibaatooyinka iyo burburka iyo rafaadka aan ku jirno aan ka baxno dadka badan ee wanaaga iyo khayrka ku jirana ay sii ziyadsadaan ay sii ilaashadaan nimcadaas ayaa la rabaa biidnillaahi alkariim. maanta mawduuceena caawa aan ka hadlayno waxa weeyaan qiimeynta labada qof ay isqiimeynayaan. sidee isku qiimeeyaan? haddii la isqiimeeyana maxaa laga dhaxli? kadib markii aan qodobadii ayaanta hore aan ka tagnay labada xabo aan dhamaystirno qiimeynta aan soo noqonayna. labada qof inay isqiimeeyaan faa'iidade laga helaa wanaagee laga helaa maya maxay hayday ma lacag bay ku kaga bixi inay isqiimeeyaan ma kharash badan baa ka gali ma dhibaato ayay u marayaan inay isqiimeeyaan waa maya waa waxyaalaha aan lacag la'aanta lagu helo oo qof walba uu awoodi karo. marka insha Allah waxaan jecelahay inaan kala faa'iideysano ilaahayna noo barakeeyo inta yareen wada joogno ilaahayna noo barakeeyo wajazaakumullahu khayr dhageysigiina wanaagsan ilaahay ajri xasanaad idinka siiyo
kusoona dhawaada insha allah barnaamijka. ما شاء الله بارك الله فيك هي إلهي أكبر كيو سيدا ولا شيء نو شكتي ويان عاو إن شاء الله تعالى همين كي هوري runtii walaalaha qaar intay noo soo qoreen feedback-googa ayay noo sheegeen in ay shantii qorteen deetana waxay yidhaahdeen idinkoo shantii dhammaystirin ayuu waqtigii idinka dhammaaday yani ayagoo markaa raqbad u haya in shantii qodob ay ka faa'iidaystaan waxaan isweydiinayaa marka walaalka iyo walaashana fiirsanaya hadda telefishinka hor fadhiya haddaad xasuusato shantii qodob inta aanan ku bilaabin maadaama oo nidhi barnaamijkeenan waa barnaamij 10 ah aan rabno inaan wax ka barano noloshana aan rabno in aan maaragtay ku dabaqno ma aqaana inaad xasuusatiin in kale bal qofka haddii uu xasuusto waxaan jeclaan lahaa inuu buug iyo qalin u qaato ama warqad iyo qalin u qaato uu bal fiiriyo in uu xasuusto in kale lambarka u horeeya marka aan sheekada aan bilaabayna barnaamijka ayaa waxaan ku bilownay annaga oo ka dhiganayna reference marka la rabo guri in la dhiso qofku muxuu sameeyaa waxaan leeyahay qofka waxa gala damac wuxuu maaragtay raadiyaa qofkii maaragtay nolosha u buuxin lahaa u dhameystiri lahaa taasa marka waxa dhacda qodobka u horeysa oo aan sheegnay maalinka wuxuu ahaa waqti fiican marka qofku muxuu sameeyaa waxaan niri fikir hami baa galaya fikir wuu fikiraya waxa dhacaysa marka inuu raadiyo qofkii nolosha uu la dhisi lahaa oo maaragtay opposite gender ah jinsiga ka soo horjeeda hadduu lab yahayna dhidig hadduu dhidig yahayna lab yani wiil haddii uu yahayna gabadh buu raadini gabadh hadday tahayna wiil gayaankeeda ay raadini deetana waxay noqonaysaa in ay safar isla galaan safarka ay isla galeen oo ah safar ay ku dhisayaan noloshooda gurigooda waa maxay markaa safarkaasi safarkuna wuxuu kaaga baahan yahay destinationkii inaad cayinto oo dariiqaad mari lahayd inaad cayinto ay kuu caddaato kharashkii kaaga bixi lahaa inuu kuu cad yahay waxa aad ka rabto safarka markaad destination kaaga aado ujeedadaad u aadayso wax ay tahay marka yaanan hadal idinku daalinayni waxay ahayd arrintu waqti in aad ku bixiso fiican marka ninka odayga ah wiilka fariidka ah ee reerka dhisay ee hadda caawa gurigiisa dhex fadhiya ee isoo fiirinaya ee Somali cable u daaran yahay bal dib u yara noqo waxaad jaleecdaa markaad gabadha hadda ku ag fadhida amaba aad guursatay ee guriga kula joogta ee ilmaha ku dhashay ee aaba ka dhigtay ilaahay ka subhanahu wa ta'ala markii aad shukansanaysay markii allaha saawaysay markii aad rabtay in aad maaragtay guri la dhisto bal dib u yara jaleec sidoo kale waxaan ku leeyahay gabadha iyada laftigeedu na soo fiirinaysa ee fadhida ee hadda maaragtay noo jeeda bal adiguna waxaad dib u jaleecdaa waqtigaad ogolaanaysa ee hamigaaga iyo caqligaaga intuba ay ku jirtay inaad reer dhisto reerkaad hadda ku dhex jirto waxaan adigu cudur daaranayaa hadday labaduba isla joogin waxaan leeyahay iyaga laftigooda haddii ay soo mareen maxaad samaysay markaad reerka aad soo martay aad dhisaysay waqti dareen ka fikir jacayl inta way ku soo martay waxaan leenahay marka hadda qofkii ay soo martay ee aan hadda ku jirinna waxaad ku fikiraysaa hadda laftigaagu inaad hesho guri ama qofkii hore ha isku soo laabatiin oo soo laamo ma garanaysaa ama ba qof kale in aad la kulanto hal su'aal isweydiin marka oo ku jirta waqtiga reflection inta ku sameeyso waa qofkii uu ka xumaaday ama uu ka halaabay aan raahdo reflection inta sameeysid isweydii imisa waqti ayaad ku bixisay inuu reerkaaga sii jiro adiga hadda reerkaaga dhex fadhiya oo ay dhici karto in aad waxyaabo qaar kood aad ilowday imisa waqti baad ku bixisay juhdi intee la egbaad gelisay guriganaad ku dhex jirto in uu ku jiro Allah idin barakeeyo qodobka horeysa wuxuu ahaa
waqti fiican inaad isla qaadatiin. qiimayntay dhinac ka soo galaysaa oo qofka aan la noolahay in aan siiyo full boqolkiiba maaragtay 100 attention. boqolkiiba 100 in aan siiyo waqtiga ugu quality-san ugu fiican. ka waran anoo daalan, anoo xanaaqsan, anoo gaajaysan, anigoo maaragtay gebigaygu waa muur kale ku jira, haddaan damco inaan la hadlo hadalku iga qalqalloocsanay iga halaabay iga xumaani. marka maxaa leeyahay waqti fiican isla qaata. marka qodobka ugu horeeya wuxuu ahaaybu waqti fiican. qodobkii labaad kalimatu dayiba, hadalka wanaagsan. jazaaki allahu khayr. hadalka wanaagsan walaalayaal, xiriirka fiican, mucaamalada wanaagsan, afkaaga uu ilaahay ku siiyey uu kaala xisaabtami doono wixii ka soo baxaya weeyaan. qodobka labaad waa waxa bishimahaaga iyo carabkaaga ka soo baxaya inay wax wanaagsan ahaadaan. falyaqul khayran aw liyasmut, nabi sallallahu alayhi wasallam yiri. nacam ma aamusayna, waa la ogyahay. liyasmut waan iska daynay, laakiin falyaqul khayran han ku dadaalno. bal waaban hadlaynaaye khayran ku hadalno oo khayr badan han ku hadalno oo qiimeyntii bay soo galaysaa. casharka labaad aan qaadanayna soo galaysaaye han hadalka ku qiimeyna dadka ya oo kalimatu dayiba han nidhaahno. taasi qodobkii labaad beed axmedow. qodobka saddexaad, qodobka intaan hiway ka bixin cashar badan baa halka ku jira. walaalaha waxaan ka codsan lahaa insha allahu tacaala kalima dayiba, kelmadu iska wanaagsan kaliya miya maxaa ku dhex jira in la kala furfuro ayaan jeclaan lahaa oo aan aad idin ka codsan lahaa runtii inaad raadisaan, inaad sii akhridaan, inaad sii baadhaan, inaad dhagaysataan. kabacdi markaad dhageysatana sida muraayadda inta isku hor joogsatid adigu haddaad gabar tahay, haddaad haweeney tahay, haddaad hooyo tahay aad isweydiiso sidaad ula dhaqantaa qofka lamaanahaaga kula ula hadashaa. yani marka dhaqanka markay hadalka noqoto sideed ula mucaamaloota ula hadashaa weeyaan. kelmadaheed ku tiraahdaa qofkan ood u doorataa inaa waxa waa khiyaar mo filter baa la isticmaalaa. khiyaar weeyaan, yani been isku sheegin. waxaan qofku markuu hadlayo isaga mas'uulka hadalkiisa. aqligiibuu qabaa oo garaadka maliin, ma garatay, wax walbuu og yahay. marka kelmadahan uu ku hadlay uu doortay isagaa khiyaaray. marka waxaa la rabaa inaan khiyaarka aan hagaajisano oon wax fiican aan khiyaarno. wallahi way adagtahay runtii, oo waxay u adagtahay waxa weeyaan xilligaas waxa kugu jira ma controli karaysid. sidaad rabtiin u hadashaa rabtaa, waxaad doontid inaad tiraahdaad rabtaa, adoona ka fikirsanayn raadka qofka kale ku leedahay iyo natiijada iyo qalbigiisa si ay ugu harayso. marka waxaa la rabaa in la practice gareeyo. guriga maxaa nidhi waa meeshii wax kasta lagu practice gareeyay, lagu tababaranay. tababarkii baan ku jirnaa. marka ku tababaro gurigaago, ku baro haweeneydaada amba ninkaaga, ku baro hadalka wanaagsan. hadalba hadalku ka fiican yahay, lianna ummaddu waxa weeyaan markay banaanka u soo baxdo qaab badanka sida ugu badan wanaagsan bay iskula dhaqmaan. laakiin waxaa daran guriga marka lagu hoydo, ma garatay. asxaabtii waxa weeyaan ahlu jannadii markay jannada galeen maxaa la yidhi markii la weydiiyey jannada maxaad ku gasheen, maxay yidhaahdeen? jawaabtooda waxay ahayd innaa kunnaa fii ahlina mushfiqiin bay yidhahdeen. annaku waxaan ahayn dad guryahooga markay joogeen ilaahay ka baqi jiray. gurigaaga markaad joogtid waa markaad ugu dama-aniino fiican tahay, ood waxba ka walwalayn, ood safe tahay, oo maad aragtay gurigaagii aad mulkigaagii aad ku jirtid. xilligaas buu qofku ugu cabsi badan yahay. dadkii sidaas u hadlay ee ahlu jannaha waxay yidhahdeen innaa kunnaa fii ahlina mushfiqiin. ilaahay baan aada uga baqi jirnay markaan guryaheena joogno. waxaa la rabaa guriga inuu noqdo meesha ilaahay lagaga baqiyay. marka hadalkiina la toosiyo, la wanaajiyo, in maad aragtay qofkiina time iyo waqti quality la siiyo. inaa qofkan ummadii kale aad iska soo doorateen oo guri baad ku soo wada xirooteen, ma ogtahay? taas waa tii labada xamil saddexaad aan gudub. quality-ga iyo hadalka sababta saas loo leeyahay waxa weeyaan runtii banaanka exactly sidii hadda hiyo sheegaysay, banaanka waqti badan iyo juhdi badan iyo effort badan baad ku soo bixisay. way salaalinaya qofkii. wuxuu leeyahay yaa laga qaadan sawir xun. qofna kuma dayayo hadal xun inuu yiraahdo. aad buu taxadirayaa. waxa weeyaan wajigiisu dhowranaya, laakiin gurigiisa markuu yimaado sidoo doono umada ka yeelaya. ilmihiibu sidoo doona ka yeelaya, reerkiibu sidoo doona ka yeelaya, gabadhii kadalik ayadii waxa wadan siday doontay u hadlaysaa.
wax badan ay dhowrayso markay banaanka joogto guriga markay timaado ma dhowrayso waxaa la yiraahdaa double standard baa la yiraahdaa waxaas oo kale inaad sina u dhaqantid banaanka markaad joogtid guriga markaad timaadidna si kale aad u dhaqantid marka hal qof noqo shakhsi kaliya noqo oo banaanka markaad joogtid iyo guriga markaad joogtid bilcagsi guriga ka sii fiicnaa guriga noqo the best guriga ku noqo qofka ugu wanaagsan ugu raaxada badan leh ugu hadalka dabacsan leh ugu sabirka badan leh guriga ku dhex noqo inna kunna fi ahlina mushfiqiin wallahi ayadahan fiirsano ilaahay waxay ka baqayeen dadka ahlu jannadu markii la weydiiyay markii guryahooga joogeen subhanallah واسد النبي يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي waxaad walaal ka dhigataa marka hameenkii hore ballan baan galnay oo waxaan ilaahay target aan ka dhigano qodobada nafteena aan ku dabaqno marka reflection hay noo noqoto yacna inaan ka fikirno oo isweydiino nolosheena gurigeena sidaan ku nahay qodobka ah kelmadda marka bal ninkuna iskii hay isweydiiyo gabadhuna iskeed hay isweydiiso waxaan kaloo ku darsan lahaa oo idin weydiin lahaa su'aalaha idin weydiinayo waxa kamid ah adiguna iskaga jawaab marka aad hadlayso qaabkeed u hadashaa ma adigoo xanaaqsan baad hadashaa ma adigoo iska caadi aad hadashaa labada maxaa u dhaxeeya markaad caadi iska tahay iyo markaad xanaaqsan tahay kelmadaha aad isticmaasho markaad caadiga iska tahay kelmada caynkeeya weeyaan message caynkeeya ayay wadaan marka aad wax diidan tahay ama aad xanaaqsan tahay ama aad wax dhibsatayna ereyada iyo kelmadaha aad isticmaasho waa kelmada caynkeeya ragga iyo dumarku way ku kala duwan yihiin marka haydi la wadaagna insha Allah raggu kelmado wax sawira kelmado maxaan ku dhahday dareenka qofka yacna وسيديني مرة كاركود إسقى أنا كفكرين عقيبة الكلمة دانا قبل اللي فتكده أساس قبل وحي حوق وتقانا يدو إن أي wax sawirto ninkuma yaqaan wuxuu ku siidaya saas daradeed ba mararka qaarkood waxa loo yiraahdaa description ka marka la sameeyo wax la suureynayo ama la tilmaamayo gabdhaha ka khatarsan ragga waa laga yaabaa inaad igu khilaaftiin laakiin waa wax laga qoray oo maaragtay la tilmaamay wayna ka hadal badan yihiin gabdhuhu ragguna way hadal kooban yihiin hadal badina way ka vocabulary badan tahay gabadhu ninka taasaa keenta mararka waxyaaba qaarkood inay raggu dhibsadaan hadalka gabadha ku dheeraan mayno qodobka saddexaad wuxuu ahaa hibo qodobkii hadiyadda waxaan u malaynayaa inaad dabcan walaalaha qaarkood wayna yaqaanaan wayna ku baraarugsan yihiin love challenge clip yar aan soo gudbinay oo ahaa maxaan ku dhadayay yani tahaadu taxaabu isku hadiyeeya waad jeclaanaysaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago amaba hiba inoo sheegto qaabkay hiba u cabiraysaa aad u qurux badan guri jaar aan nahay oo maxaan ku dhadayay aan ahayn ayaa waxa cajiib ah hadiyad baan u geynay hiba bal inoo suuree waarun hadiyadda qisadaas nooga sheekeen khayr ku sadiigu soo dhaweys runtii qisadaas qisadu waxay ahayd cajiib badan annaga inagu dhacday runtii aniga Axmed gurigayna aan deganahay waxaan daris lahayn reer Jamaican ah reerahaas Jamaicanku way naga badnaayeen annaka alxamdulillah laba gabdhood oo yar baa noo jooga marka wiilal yar oo badan way haysteen alxaasil almuraad gabdhihii bay naga dhibaan gabdhihiina yareera banaanka ay ku ciyaari kar waayeen beertii aqalka hortiisa ay soo bixi kar waayeen markaasaan runtii Axmed iga sabir badan yahay anu mar inaan la yaaban doonay oo garaaca dadkaas laakiin alxamdulillah wuxuu yiraahdaa iska dhaaf hibo iska dhaaf ma garata marka waxa la yidhi ma shanta ka reeban sharci ka ma rabo waxa aan aaminsana marka waxaan islahaa kuwan adu iska celi alxaasil almuraad Axmed oo ma qabaan isgalnay waan isku baaba'nay runtii dhibaato meeshii ka dhacday dadkii sidii baan ku kala tagnay Axmed markuu yimid booliis baa yimid adduunkii oo dhan sheekadii baa isla balaaratay wixii oo dhan waxa la yiri ka heshiiya qofna jeel lama geeyay qofna waxba lagu ma sameeyay laakiin heshiiyeedu ku daris baateen sidii baan ku kala joognay hadii aad heshiin kareyna kala jooga waynu kala joognay marka maalintii dambe baa waxaan aragnay gabdhihii guriga lahaa mid kamid ah oo xaamilo ah maynaan sii doondoonina inaan in yar kadib gabadhii way umusho ilmo dhashay
ilmo markay dhashay sanad baa kasoo wareegay ها با sanad kadib ilmihii markay umushay buu Axmed muusan iloobin gabadhii hadiyad buu soo xiray runtii dadkuna way kala fiican yihiin khayrka in la isku jiidaa la rabaa ma fahamtay وتعاون على البر والتقوى بعد marka mucaawanadii buu ilaahay khayr siiyay wuxuu ilaahay waafajiyay inuu gabadhaas hadiyad u soo xiray Jamaica ka dariskana la hadiyadii markuu u keenay baan aanu tagnay gabadhii waan soo ziyaaranay inaa ilmo yar baa u dhashay hadiyadii ilbaabkii markay naga furto way naxday horta wayba yaabta markaasayna soo dhaweysay wayna soo fariisisay inaan aakhirka qofku waa qof bilaadana moogta markaas gabadhii si fiican oo la hadashay way yaabtay runtii way fajacday marka su'aasha na muruggelisayna weydiisaa waxay tahay diintiina islaamku ma nii banaynaysa oo ma idin fasaxaysa inaad qof idinka diin duwan aad hadiyad u keentaan wallahi waa ka murugoon qof krishtana inaad siisaan hadiyad ma diintiinu ma nii ogoshahay bay nagu tiri waan ka murugoonay intaay ka badan bay noo ogoshay oo inaan u baari falnay noo ogoshahay oo waxay noo ogoshay inaan khayr oo dhan siino oo inaan wanaagsanaan oo inaan u sabirno oo inaan u dulqaadano ayay noo ogoshaan ku yiri wax ka badan marka xuquuq badan baa la isku leeyahay daris hadii leeyahayna wayba ka sii darantahay gabadhii runtii maalintii baa sharkeygii noogu dambeysay maalintii baa dhib oo dhan naga daysay intii ay dabada ku wadato dhanna ay naga qabatay naga celisay waxa weyn hadiyadii yareyd oo qiimaheedu xataa iska kooban yahay ilmo yar wixii loo soo gado wad sawaran kartaaye baa waxay dhalisay cilaaqaad aad iyo aad u qoto dheer gabadhii Birmingham bay nala degan tahay baabuur haday wadato wadada marayso salaanta nalama dhaafto wayna salaanta awalna dhuuntaasay noo gashay oo waan ka fadhiisan kar laan marka walaalayaal hadiyadaas cilaaqaad fiican oo aad u fiican bay dhalisay wallahi marka qof kasta oo ka caroodan waxa baan oran lahaaba qof kasta oo xurguf yar dhex martay amba dib ay dhex martay bal adigoo hadiyad yar wada u tag معجزة ماشاس كده عدونته والله كم خساريسد مرنا بكم خساريس لكن وح أرجعون إن النفط هذا حكم يسد أو هدية دي قديد أو أرجع كهر مرتد طلابة أو كهر رئيسة با أرجع جوهره لكن نتيجة ولا أجي والله هو مر والبول جوجو ليسن لكن يا طلابة أسقاطية جزاك الله خيرا آيات القرآن كإلهي سبحانه وتعالى أولها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلاقاها إلا الذين صبروا وما يلاقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر waxaad maqlaysaa in hiba tiri way adag tahay talaabada u horeysa ilaahina muxuu yiri wama yulaqaha maxaa la soo sheegay kaanahu waliyun xamiim qof ku dhibay hadaad wanaajiso oo maaragtay adigu wanaaga aad qaadato fiiri waa cajiib gabadha waxay tiri yaana runtii ilan baan ugu soo joogsatay miyay idin ogoshahay diintiinu inaad qof Christian ah aad hadiyad siisiin subhanallah bal fiiri هداد هلي كرتين أخرجتها كتابك أقرأ ابن قدامة منهاج القاصدين وحكوت المامية جارك إحسانك الله فلا يا جارك حيسوق شاع عشر رضا عن دقنو معركتي أونلاين كأن قصة منه قيب كمد أيا كجرتها responsibility يا roles قويس كني مسؤوليات كنحدو ذي يلا هي مسؤوليات ده كسارا عدة إلى دقنيهين إمام ابن قدامة محو شيغي وحليه reerka jaarkaaga ah hadii ninkii uu ka maqan yahay oo gabadhaasi caruur iyo maaragtay guriga ay degan tahay waxaad mas'uul ka tahay oo ku saaran inaad ilaaliso maadaama qof muslima aad tahay hatta hadii ka diin duwan tahay shoof raxmadda iyo naxariista diinteenu leedahay alxamdulillah qofkii ka diin duwana ee jaarkaaga aha baa lagu leeyahay adigu wanaaji oo ilaali ilaa uu ka soo noqonayo qofkii mas'uulka ka aha miyuuna ku jeclaanaynin qofkaas ilmahaagu hadii aad waxaysataan oo iyagu aynan waxba haysanin ha tusin waxa aad haysatiin khaasatan marka la ciidayo ilaahay u naxariisto sheekh kashka ayaa oran jiray gurigiina ciida gurigiina dhexdiisa ku sameeysta jaarka hadaydan u geen karin oo aan maaragtay idin la wadaagi karin waa cajiib marka walaalayaal hadiyadu waa wax cajiiba qodobka saddexaadi hadiyad buu ahaa su'aasha marka walaalkii ku weydiinayo aan walaashayna aan weydiinayo waxa laga yaabaa waligeeyba ma anaga hadiyadiisa siinay inaad tiraahdiin waxa laga yaabaa qaarkood oo isoo wacay walaalaha khayr Allah siiyo aniga oo baabixiye hadiyada ee qofka
aan la noolahay hadiyad kama helo waxaa laga yaabaa qof kale inuu adaarin leema barinba sida hadiyad loo bixiyo hadiyadu maxay yani qiimaheedaba inay inta badan dadka qaarkood ayna ku baraarugsaneyn ayaa dhici karta laakiin waxay siintu waa wax weyn qodobka afraad baan u gudbi iyo qodobkii shanaad oo aan rabno inaan siyara dul taagno quality-ga inta aanan u gudbin marka qodobkii shanaad iyo qodobkii lixaad waxaan runtii idinka codsan lahaa insha allahu tacaala injineerkan aan ka codsanaya inuu ina tuso xaflad baan samayn doonaa haddii alla yidhaahdo jimcaha soo socda biidni illahi alkariim xafladaasi waxay ka dhici doontaa masaajidka west ealing ku yaala maxaan ku dhahday jamaaca islaamiya halkaasuu ku qoran yahay ood arkaysiin west london islamic center jaamica masjid marka hameenka bishu 9 ay tahay waxaan kusoo casuumaynaa qof kaste oo na fiirsanaya oo jooga dalka UK gaar ahaan magaalada London iyo nawaaxideeda inay kasoo qayb galaan oo ay arkaan ardaydii qaadatay casharadan idin sheegaynay iyo waxa ay kala kulmeen runtii hameenka hadduu la yiraahdo waxaan rajaynaynaa dad qiimo badan inay isugu yimaadaan oo dabcan idinkuba aad kamid tihiin dadka qiimaha badan la iimaanaya in marka laga faa'iideysto haddii la yiraahdo waxaan rabaa qodobkii afraad iyo qodobkii shanaad inaan u galno hadduu la yiraahdo hadda laga bilaabo insha Allah line-ka telefoonka uu idin furan yahay wadna soo wici kartiin hadhow toolana waan isweydiinaynaa su'aal iyo jawaab qodobka afraad wuxuu ahaa wax isla qabad iyo wax isku qabad wax isku tar act of service in wax la isku qabto in wax la isku taro luqadaha aan idin sheego waxaan idin weydiin doonaa shantaasi qof kasta miduu jecel yahay aniguna tayada waan idin sheegi doonaa insha Allah hibana oo idin sheego barakallahu fiikum yeynaan iloobin walaalayaal waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan luqadaha jacaylka lagu wada hadlo qof walba wax buu jecel yahay qof baa wuxuu jecel yahay oo qiimeeyo hadiyad in loo keeno qof baa wuxuu jecel yahay in la wado oo meel la geeyo oo saas uu arkaa in lagu qiimeynayo qof baa wuxuu jecel yahay hadalka iyo kelmadda dayibka iyo maaragtay in qofka waqti la siiyo qof baa wuxuu jecel yahay in wax lala qabto ya marka in wax la isla qabto oo gurigii la wada shaqaysto oo gurigii la isku caawiyo la isku gargaaro ya oo wax la isla qabto qofka qiimo badan bay u sameynaysaa yaana la yaraysan walaalayaal wax yar oo waxba ahayn wax yar oo waxba walibana anigu waxaan rabaa si khaas ah in aan ragga ula wadaago wallahi ma ogidin qiimaha ay dumarka u sameynayso inaad xataa matashid ood iska yeeliyay haddaad xataa run u kari weydid bal iska raadi oo doon oo tartiib ku bilow aada arki doona raadka ay ku leedahay haweenadaada isku day wax yar adoo miis yar nadiifinaya adiga wax yar qabanaya waa run shaqaad soo haysay reerkii baad u maqnayd banaankaad ku maqnayd wax badan baad reerkan u soo tartay alxamdulillah laakiin guriga markaad ku soo hoyatid ayaduna intii aad banaanka ku maqnayd bay non stop u shaqaynaysaa ilaawinta hamoodina haweenku inay guriga iska fadhiyaan dumarkuna yeeysan moodin raggu markay baxaan inay shaqadu ay dib badan ayna lahayn yeeysan la moodin qofka kale yuu ku khaldamin qofka kale yuu arkin inuu shaqadu hayo shaqo yar ay tahay ma garatay qof walba ha u arko qofka kale shaqo aad u weyn oo muhiim ah inuu hayo marka maxay tahay luqadda jacaylka waxa kamid ah wax isla qabadka dumarka qaarkood waxay jecel yihiin inay hadday wax yar qabanayaan uu ninkooga ka soo agdhawaado ma fahantay uu wax yar oo kale la qabto uu la sameeyo uu maaragtay gacmihiisa ka dhaqdhaqaajiyo waxay dhibsanaysaa oo dhib ku ah inuu meel iska fadhiyo halka uu ka daawado ya wallahi ragga ilmahooga u qubeeya ee seexiya ee cashar u dhiga ee wadwada wax kale badan ba kaama baahan gabadhu waxay kaaga baahan tahay ilmaha aad dhashay ee aabaha u tahay inaad ku mashquulshid oo aad ugu mashquulshid ma garatay marka isku caawiya gabadhuna kadalik sidaas leeg oo shaqada badanka looma tilmaamay waxaan ragga ugu sii adkeynayo laakiin qiimaha ay ragga u yeelayso jawharo أنا وحن جعله نفطي وحن جعله يدي شيء والله بين ما يدي شيء. أنا قبلها ميل بروح. أنا وحن جعله أحمد وحن جعله مركان أنت ذكريه ما عرفتين عشان ذكريه أو وحول بصميه إن كوب كيك شاح ليسو كريه أفرستو. ما شاء الله. خشبات مركا وحن ربا
inaan cuntada kariyo oon miiska soo dhigo oo la casheeyo oo la dhargo laakiin koobkayga cappuccinaha amba koobkayga lemon teaga inaan laysoo sameeyo oon fadhigaanoo iska fadhiya lay keeno wallahi xoog baan u jecelahay waana iska sheegtaa waxaan jecelahay in marka waa inaad sheegitid xataa adiga ma ogtahay inaad qarsatid maaha qofku qalbigaaga kale ma soo baxayo marka walaalayaal waxaan is caawino oo ha la isku gargaaro wiilasha iyo gabdhahaba waxa weeyaan luqad ay dadku jecel yihiin weeyaan khayr allah ku siihiboy sidaad okay alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay magacaaga iyo meeshaad nagala soo hadashay adoo mahadsan wiil Soomaaliyeed oo aabaha magac kuma bixin laakiin waxaan doonayaa su'aal yar oo public ah inaan idin weydiiyo oo kulay marka qoyska waxaa la sheegay kulay qoyska ku saabsan tahay marka su'aashaas aan doonayaa inaan weydiiyo kulay qofku markuu su'aasha uu weydiinayana waa iska jeclaysan magacaaga xiriyo qofka wiil Soomaaliyeed ku ay waad baadsantaa walaalkii wiil Soomaaliyeed jarmalka laga soo wacay marka kulay ma sha Allah wax loo baahan yahay wadaan qoyska yacni in laga hadlo oo inta markaa yacni khilaafka qoysku aad buu badan yahay marka in la deebiyo oo waxyaabaha ay ku heshiinayaan waxyaabaha ninka iyo xaaskiisa waajibaadka ay xaqooda xaqa ay gabadha ku leedahay ninkeeda gabadha xaqa ay ninkeeda waajibaadka ay ku leedahay marka gacanta ay ku leedahay in kasta laga hadlo isku dhiirigeliyo marka su-aasha waxaan doonaya inaan sheekh weydiiyo laakiin kulley diinta waxba ka fahamsan tahay marka waxay ku saabsan tahay arrin meher markay ku saabsan tahay aniga inan iyo inan baa inay isku shiraabay doonayaan marka inanta meherkii ay qabsantay waxay tiri meherkayga waxaan ka dhiganayaa kitaab quraan haye kitaab quraan meherkayga ka dhiganayaa marka diinta islaamka maxay ka qabtaa aniga kitaabka quraankaana kitaabku ii soo iibi kitaabka markaad siiso intaasuu meherkayga aniga ibaro inay bartan doonaya laakiin inaad qolli ii soo iibiso siiso baan meherkayga ka dhigtay marka ma in wax loo raaciyo oo yacni gabadha xaqooda ku leedahay yacni in xaq ay ninku siiyo abu diinta islaamka su-aasha ka waad mahadsantahay walaalkay waad mahadsantahay jazaak allahu khayr waan fahmay su-aashaada walaalaha kale dhegaysanayana ka faa'iidaystaan insha allah gabdhuhu inta badan marka ay su-aasha isweydiinayaan inkastoo mawduuca dabcan ay ka baxsan tahay walaalahan ka codsan lahaa hadduu la yidhaahdo qodobada aan ka hadlayna mucaamalada qoyska iyo guriga in lagu ekaado marka su-aal ama talo la isweydiinayo kitaabka qur-aanka messageka ku hoos laaban waxa weeye dhowr bay isugu jirtaa kow inaad barto meesha way taallaa maya waxaa dhici karta gabadhan inay xaafido tahay oo qur-aankaba ay korka ka haysa gebigiisaba laakiin messageka uu yahay ogow haddee arrintan kitaab baan anugu meherkaygii ka dhigtay mucaamaladii inaad igu dhaqdo diin inaad igu dhaqdo oo kitaabkani uu inoo dhexeeyo labadeena maadaama aniga mahar igu yahay ii yahay meherkiina aad maxaan ku dhahday igu xalaalaysanayso ha message caynkaasa ku jira inta badan laakiin waxaa la yidhaahdaa waxaa aada u qurux badan kitaabka iyo gabadhu meher wax ay jeceshahay inay qabsato oo hadday doonto maado ah oo la siiyo markaa khayr la siiyo telefon labaad baa ku jira assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawo walaashay magacaaga iyo meeshaad naga soo wacday magacayga waxaa la yidhaahdaa aamina cali yuusuf maasha allah aamin halkeed naga soo wacday waxaan idinka soo wacayaa dalka norway oslo ilaahay ha kugu xifdiyo waxaan daba joogaa su-aashii hiba hadda ay sheegaysa lahayd waxaan jeclahay markii anigu aan cuntada kariyo oo aan miiska saaray in koobka bajiinaha laiisoo sameeyo waa saas taasaan ku daba taagna waan gartay waxa weeyaan horta qof kastaba waa bini-aadankana sidoodaba ishooda caraa buuxisa adigoo waxa weeye asxaab badan samaynayo oo ilmihii ka shaqaynaya oo gurigu hagaajinaya oo wax badan tahay haddii lagu arko inaad wax walba aad adigu qalad u samaynayso waa mid meesha ku jirta laakiin hadalkaahi baan raacaya waxa weeyaan qofka inaad adigu soo jiidasho samayso sax weeyaan soo jiidasho dheeraada waa inaad samayso oo adigoo jajaban lagaa arko
صح وي صح وي marka jajabnaantii adoo jajaban haddii qalad loo arkayso dhibaato ma aha aaminay aad baad umahadsantahay waa su-aal runtii muhiima ayna soo weydiiyeen dad tiro badan telefoonada laymanka markaan ku hadallo aniga iyo hibo dad kumanaan yaa dhegaysta telefoonadaayoo maaragtay Yurub iyo Maraykan iyo meel kastaba ilaa Afrika lagaga jira arrimahan waa la isweydiiyaa waxa ay ku xidhan tahay dabcan casharkeennana way ku jirtaa oo qayb la yidhaahdo ayaa jirta kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka iyo qaybta labaad oo ah maalan tarbiyadii iyo korsiintii hore qofku meesha uu ka yimid waxay aaminay u baahan tahay in ay dadku isbartaan gabadhuna inay barato wiilkan ama ninkan ay isqabaan maaragtay caruurteeda aabahood ah meesha uu ku soo koray iyo maaragtay sidii looga dhaqmayay taa macnaheedu kama dhigno oo mubarir uma siinayo ama excuse ugama dhigayo hadduu qalafsan yahay hadday qalafsan tahay hadduu hadal adag yahay hadday hadal adag tahay waa saxo waa mubaax oo maaragtay waa loo qadarinayaa meesha bay ka yimaadeen yaanan waxba laga odhan sidaa lagu haysta ma aha ujeedadu waxa weeyaan in la fahmo qofkani meesha uu ka yimiday waxa dhici karta in ujeedadiisu aynan ahayn ku xumay ama ku dhib ama ku dhaawac inaynan ahayn uu dabac ay ka tahay uu soo bartay waxaan leenahay oo walaalaha aan kula talinaa mar walba in ay dabaca haddii u adkaa ay u bedelaan dabac maaragtay dabacsan oo naxariis leh maxaa yeelay nabigayna baray sallallahu alayhi wasallam lagana hadlo dabcan ku darsanay laga wada hadlo oonan wixii la isku celin waxa dareemaysid wad wanaajisay qofkan ma haduu arki waayo marka ugu horeysa haduu arki waayo mar labaadka haduu arki waayo u sheeg oo macneede inta soo wanaaga moogta inaan ku qabanay waxaas oo dhabaan qabanay ma garatay ani markaan waxaan jecelahay saas ila dhaqantid oo saas ila dhaqantid adiguna ii sheego waxaad jeceshahay ma garatay tabaadul yimaado in la isku sheegto insha Allah waxaan ku baraarujinayaa isku sheegga laftigiisa telefoon ma ku jira waan insha Allah ku siinayna walaal isku sheegga laftigiisu qaab buu u baahan yahay qaabkaas laftigeeda waa qaab u baahan in la barto waayo qofkani sidaad u hadashay waxa dhici karta inay dhibto oo maaragtay ay u arkaba maaragtay inaad ataagayso waliba waxaan oran lahaa dadka muddada isla joogay caruurtoodu rooroonaadeen dib ha loo fiiriyo qaabka aan iskula hadlayno walaal kale ayaa ku jira waxaan ku darsan lahaa wax yar oo fudud waxa lagu leeyahay run ahaan hadii hoos loo sii dhaadhaco qaabka aad su'aasha dadka u weydiinaysid waxa ku jirta qaabka su'aasha u weydiinaysid waxa ku dhex jirta jawaabtaadii baa ku jirta marka adiga ayaa samaysanaya badanka yaa mar walba ma badanka jawaabta qofka kaaga timaado waad samaysatay marka ka fiirso qaabka wax ugu weydiinaysid ka fiirso qaabka wax ugu bandhigaysid waxaas oo dhan soo diyaari ma fahamtay neuropsychology hala la isku sabro runtii khayr Allah idin siiyo telefoon kale ayaa ku jira walaal magacaagii meesha naga soo wacday السلام عليكم مرحبا ابو احمد وكاله صاحب سويسرلاند ابو احمد reer Switzerland ودي قرنتين ilaahay idin barakeeyo soo dhaw walaalkay حياكم الله يا ولا قاليga waxaan jeclaanaa mawduuca oo laga hadlayo inuu kalo waagi aan ku noolaa Soomaaliya waxa jirtay runtii gabadha qowmiyaddan macnaha waxa wada saayida marka waxa jirtay baraka qaad inaan ku fiirso waay marka guriga uu soo laabtay iyadoo hoola badan waxyaabo ay ku furiyin aan hoosh inaan la qabto aan jeclo isku dayo marka guriga reerta nala deganaa dabcan waa markaas qiimo kala dabcan dadka Soomaalidu waxa jeclaanaa mawduuca in aad looga hadlo dadka lagu baraarujiyo macnaha labada qof oo kala gacayl ka dhaxeeyo sidoo doona isku caawiyaan noloshooda ku faraxsan inaan lagu mashquulin waxaa jirta in dib loo hadlo oo laga hadlo gabadha ay soonayso marka ilaa heer ay la gaartay tiraahdo waxba ay la qaban markaas waa gudaayo gal dadkaaga ah hawsha guriga أنا رحت دميركم سوى وبعدين يبنتوا عليه تعرفوا في كل أوليان مولا بدن يسوع يا وبدن كل دارسين إن نعاوي هذا الكلام مركز تذكر نوع عسو تذكر فيلم بالكلام معنا نرجو فرحتين السؤال حتى نكون مسؤول معنا فيك الفوقين وحيابها صار وناجح عيب كجدي جاي إن لقاها لو تعلان هذا هذا كله هاي كنت أرسل لها مال حتى وده كان يجوا حاجة تقولين تركيا كوميونيتي التركيشكا أنا يلا شقين جري مكروه حاجة جدي في لوجو إن سيمينار مرة خطط يسوق كانوا قليات ملندي كباقو كسر جد أنا ودك هذا رجع علماء ودك يفكي لكن جد هالكلام لكن جري والسوش جري برنامج وين لو قبل جري إن بتفهم النقري ومعناه قليات هامر كهور هات الحفيال هالسوق كين جري ماشي كهل جري علماء دي حد جدي كبر رجين جري طبعا ماشي هناك بدنا كسر جري غير عصب نكات أسمانا تعي صح مثل الصوماليين عندهم شأن البرنامج كان كاسة علماء خوش كأدي على السودوينا
teeda kale waddanka aad joogtaan kulli inaad isku daydaan inaad barnaamij noocaas samaysaan oo dhalinyarta soomaalida isugu yeertaan oo aad kala hadashaan nolosha in la dedejiyo la horumariyo famil la naqdo ay fiican tahay macnaha dadkii hore usoo sameeyena sidii dad isbuusaday oo kala dhalinyar ahaan jiray inay ka hadlaan saxwe u sheegaan faa'iidada ay leedahay inaaga ku jira awlaadda maantooda aabba iyo hooyo in la naqon doono wax badan وجعلنا لنا برنامج نوع عبد إذا كإلهي أبو أحمد هيهبه may waa runtaa wallaahi runtii waxa weeyaan Abu Axmed oo ilaahay horta ka jazaysiyo meesha joogtina ilaahay nagu amaansado annagana saas leeg in waxa jira qofku wuxuu ku nool yahay saddex environment environment waxa weeyaan waa gurigiisa iyo reerkiisa iyo ilmihiisa environmentna waa asxaabtiisa iyo dadka ka agdhow environmentka saddexaadna waa mujtamaca marka saddexduba haday kugu saacideyn nolol adag baad galaysaa hadduu reerkaagu fiican yahay laakiin aad ku dhaxnooshay mujtamacaanan society amba mujtamacaanan fahmayn qaabkan oo khalad ba u arka jiljileecaas iyo naxariista iyo dabacsanaantaas u arkaba doqonnimo war ninkan maxaa ka siya weyn ma fahanti muistoosiyo la leeyahay marka taasna dhibay noqonaysaa laakiin runtii waad ku jihaaday waanad ku adkaysatay waxayna ku dhibtay saad sheegtay reerkaaga dhibtaysataa ku dhibtay taasaana muhiima maanta aan kula hadlaayo wiil baan la hadlay runtii telefoon aan isku maqalnay wiilka waxaan rabnay inaan meel meeting ah oo hawlo naga dhaxeeya aan iskugu nimaadno wuxuu igu yiri gabadhii baa iga walacaysa oo gabadheedii baa walaca xoogaa way yar xanuunsan tahay waa daciif kama imaan karo waxaan sameeyaa buu yiri banaanka intay beerta yar aado baan qadada u boobsiyaa oo kariyaa aqalka dhan baan ka nadiifiyaa ka leeyda aan u saara marti eera yar siiya kadib iyadoo cuntadii iyo urtii ay ka baxday bay timaadaa wax yar bay cuni isla markaaba way soo matagaysaa buu yiri laakiin wax yar baa ku haraya bal naxariistaas arag walaal wallahi aniga waan iska ooyi gaadho wallahi waxaan yiri ilaaha ku dhowraan ku yiri wiilkii marka waxa la rabaa in lagu adkaysto welibana halkan baa looga sii baahan yahay imisa hooyo dhiban imisa ilmo dhiban imisa dad dayacan imisa awood ay buuxdaa wax lagu qaban karo marka in lagu adkaysto mujtamacuna waa run uu ka hor imanaya marmar laakiin in dhig loo dhiga maaha waa in waxyaalaha lagu jihaadaya kamid tahay Soomaa waa sidaas weeye khayr Allah ku siihibo walaalka Abu Ahmed Switzerland naga soo wacay dabcan reer Swiss way qornaayeen usbuucii hore ayaan la joogay reer Zurich oo marka ay laftigeeda hiba ay iga hormartay waxaan halkan ka salaamayaa runtii Professor Abdullah Mansour oo sabab ilaahay ka soo ka ahaa in aan safarka aado Ustaad Abdullah Saeed Abubakar Hassan ragii aan maartay kula soo kulmay sida fiican ii soo dhaweeyay dhamaantiin waad salaamantihiin iyo reerihii iyo familiyadii iyo jamaacadii ilaa 60 qof ee meesha isugu timiday aad baad u mahadsantihiin anigoo marnaba hilmaami karin runtii in aan sheekhyadii aan markaska aan ku soo bartay Sheekh Saad iyo sheekheena ilaahay xafiday ee maartay Cabdi Xakiim Sheekh Ali Suufi ilaahay barakeeyo dhamaantiin waan idin salaamayaa reer Switzerland meel kasta oo joogtiin runtii waxyaabaha u baahan sida walaalka uu tilmaamay hay-adda aad arkaysiin oo idin muuqata oo ay ku qoran tahay Happy Marriage Academy ayaan runtii kusoo gudbinaa casharo online ah iyo seminaaro aan ugu talagalnay runtii in la isku baraarujiyo oo qoyska lagu horumariyo taasaanan u tagay maxaan ku dhaday Switzerland Yurubna aan u marnay Muqdisho laftigeedana dhawaan aan tagnay ahayd book fairkii Maxamed Diini iyo Raxma Xasan ilaahay xafidiyo ay asaaseen ay sameeyeen influence-ka laba influence baa jira external internal dhibta marka guriga dhexdiisa iyo dhibta banaanka hadda mujtamac bay inoo sheegtay saddex ka kooban waxaan oran lahayn marka guryuhu qoysasku lamaanayaashu waa inay isku kalsoonaadaan wixii tala miya gabdhaha runtii gabdhaha maartay soo waxiib gabadh baa maalin waxay igu tiri sheekha waxaa dhacda in maamooyinka qaar ma aha gabigood oo dhan maamooyinka qaar in ay ku sheegayaan iyagu siday u soo noolaayeen ay u soo koreen ay u soo dhaqmi jireen ay ilmahooda u soo koriyeen markii dhulkii la joogay adigu halkan markaad joogtana kuma anfacaysa talada mararka qaarkood marka waxaa dhacda in isku dhac uu halka yimaado maxaan ka yeelaa waayeelkaas ama waalidka isaga laftigiisu ay ka tahay wax wanaaji
iyo wax fiicnee Aad u oo waxa halaynin ha hooyadaasi waxay tilmaamaysaa ay sheegaysaa iyada wixii standard u ahaa markaa oo u wanaagsanaa oo la qurux badaa bii'ada ay ku dhex jirtay waxaan ka codsanaynaa marka waalidiinta caynkaayoo kale ah talada u eg ama u muuqata ama ula muuqata dadka dhalinyarada ah ama maaragtay dadka xaasleyda Yurub ama galbeed ku reereeyay yacna cilaaqada ka dhaxaysa ragga iyo dumarka wax wada qabadka hadday dhib u keenayso waxaan oran lahayn ha laga daayo insha Allah taala waxaan runtii aan u gudbaya insha Allah telefoon baa soo galay salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaagii meeshaad nagala soo hadashay khayr Allah ku sii waxaan naga soo hadlaya waxaan naga soo hadlaya magaalada London. haye magacaaguna Allah kugu xafido lana Abu Sahal. Allahu akbar Abu Sahal ku soo dhawo walaalo maxaad nagu dari lahayd caawa khayr Allah ku sii waxaan nagu tiri lahaay waxba nagu matareen ka waran hadii aan xaaskaagu hayna jeclay in lala shaqeeyaba. awaataan ka hadlayna waa sax wey waa tii wiilkii ka horreeyay uu wax ka tilmaamay haye ya oo ina rabin in laga soo agdhawaado oo shaqada ku faraxsan tahay inay qabato. Abu Sahal waa su'aal aad u fiican haye waxayse ila tahay horta qof neceb ama diidan in wax loo qabto miyuu jira hadde kolka yuu jirin ata dadku isku mid ma sida faraha oo kale yihiin soo ma waaran Abu Sahal oo meeshan ka imanaya waxa weeye haye wax isku qabadka ayaa kala duwan iyo wax isla qabadka مثلا gabdhaheena khayr Allah siiyo waliba inta badan gabdhihii Afrika ku soo koray ama lagu soo qori jiray amaba maxaan ku iraahdaa waalidkoodu halkan uu la joogo oo waalidkooda ay wax ka arkeen ay ka barteen meelaha gobolada qaarkood waxa looga arkaa ninku in uu jikada galo ama maaragtay madakha galo ama uu gabadha wax la qabto inay ceeb tahay yaani qorqoda la oran jiray qorqaaw yaahe wadila faantay soo ma waan ku fahmay aad iyo aad ninkan qorqodii muxuu ahaa war nooga bax jikada qorqodu waa qofkani jikada ku wareegaya marka taasi waxay u baahan tahay in reference-ka ay lahayd aan siino gabadhana in ay fahanto in wax lala qabtaay inaynan ceeb ahayn oo iyada laftigeedu way u baahan tahay markay keligeed tahay markay ilmo badan leedahay boqolaal shay iskuma qaban karto haddayse diidan tahay anigu ma qabo aragti ahaan in la qasbo laakiin meela in la qasbo maaha oo waxa weeyaan way ka xanaaqaysaaba waxay leedahay qorqodaha aqalka wadaq ku wareegaya waa sax way Abu Sahal waan fahmay waxaa jirta meelo kale ay uga baahan tahay wax lagala qabto haye halkee waayo halkaas marka macallimadan doonaya ilaa khayr siiyo Abu Sahal walaal waa ku salaamay ilaa khayr ku siiyo waxa weeyaan anigu waxaan oran lahaa runtii waa loo baahan yahay khaasan dadka Yurub jooga way u baahan yihiin inay sacaawiyaan laakiin gabadhaad waxa dhici karta inay waqtigeeda dila joogaan amba faamiigu joogo amba qaraabo ay joogto amba asxaab joogto ay dhibsanayso inaad wax la qabatid ma garatay bal adiguna mar kale ku day oo waqtiyada ma aragtay ay rashka lagu jiro oo subaxdii hore iskuulka ilmaha marka la geynayo iyo waxaas oo kale weydii intaanad qaban xataa weydii waxa dhici karta qaabka wax loo qabanayo xataa wax yar iyadu taqaano oo boobsiisan karto in hadii lala qabto ay ka yar xumaato waa dhici karta ma garatay waa dhici karta ma garan karno moogta qofkii si uu u fikiraya marka weydii hadda diyaar baan ku ahay inaan wax kula qabtana waan rabaa in maxaan ku qabtaa dheh marka laga yaabaa inay wuxuu shay kaliya inay ku dirtaa dhici karta marka shayga uu qabo tartiib ugu yar siqo oo ilaa intay maaragtay ay iska dhiibayso ay ka baranayso waxaana aakhirka waxay ka imanaysaa waa dhaqan iyo fahan hadduu qofku u fahansan yahay khalad mudday ku qaadanaysaa inuu isbedelo walaal laakiin waa in loo sabro ta kale waxay dumarku jecel yihiin adeegoo kale wixii culays banaanka kaga imanayo dhan in laga qabto aad bay u jecel yihiin walaalayaal in ma aragtay wixii weyn oo guriga laga qabanayo ilbaab soo jaba iyo sariir jabta iyo waxyaalo caynkaas oo badan baa jirta oo u baahan xoog nineed u baahan bal waxyaalahaas lagu dadaalo jazakallahu khair Abu Sahal aad baa maasanta walaalkay waxaan u maleynayaa telefoon kale inuu ku jiro intaan telefoonka kala galin insha Allah taala waxaa jirtay hibo arrin bay u sheegtay oo ay la wadaagtay ragga waxaan ku jirnaa qodobkii afraad ee ahaa act of service in wax la isla qabto oo wax la isku taro aniga gabdhaha waxaan u sheegayaa aniguna sidoo kale
meel ay gabdhuhu ku fiican yihiin hadday sameeyaan raggoodana ay ka heli karaan wax la qabadka ay ka rajeynayaan inay wax la qabtaan. waa maxay arrintaas? habeenada kamidaan telefoon 2,000 oo qof ay ku jiraan aan ka sheegay arrimahan. waxaa ka mid ah waan ka soo gudubnay word of affirmation. marka wax la isla qabto ninku wuxuu aad u jecel yahay in loo mahadnaqo, laakiin inaga dhaqan baa wax bi'iyay mararka qaarkood, qaar badan oo negative ay leedahay. waxaa ka mid ah مثلا laa shukra cala alwaajib. ninka shaqadiisii buu qabsadee waad mahadsantahay ugu odhanaya. kelmadda wanaagsani qalbiga ayay nuur gelisaa, dhiirigelinna way u samaysaa maaragtay rag iyo dumarba. gaar ahaan raggu marka ay wax qabtaan, ay soo shaqeeyaan, ay guriga yimaadaan, sidii gabdhihii saalixaadkee wanaagsanaa ay u ducayn jireen, inaad u ducayso kelmad macaan aad ku tiraahdo, niyaddaa u dhismaysa. wuxuu ku dhargayaa, uu arkayaa in ay la joogto, uu la nool yahay gabadh dhiiri gelinaysa oo garab u ah. laakiin maxaa dhaca mararka qaarkood, inta badan ma odhanay, lakin mararka qaarkood maxaa dhaca gabadha frustrationkii inay kula dhacdo, daalkii inay kula dhacdo, inay isku fogaarayso isaga. waxa la wixii culays maanta dhan ay hayay isagu markuu soo galo in madaxa loo geliyo. iyo axmedow waxaa jirta mid kale. haye midda kale jirta waxa weeyaan kaba soo qaad, waad u soo adeegtay haweeneydaadii, adeeg badan baad u soo samaysay, banaankii wax walba keentay, isla markaaba waxa u muuqanaysa shay maqan. waa sidaas. marka wixii oo dhan waxay ku ilowday halkii shay ee maqnaa. halkaa shay marka waanba waan kuu sheegay amba waan kuu qor, hadday kuu sii sheegto horta kuma cafinayso, ma garatay? marka dumarkeenun wallahi run isku sheegan waxaan ku khaldanay waxa weeyaan shayga dhiman mar walba, waxa maqan, waxa dhiman, waxa nuqsaanta ayaan awoodda saarnaa. wixii qabsoomay, wixii hirgalay, wixii lasoo dhamaystiray, wixii lasoo qabtay awoodda ma saarno. waa ku maasanta, ilaa khayr ku siiyo, waa noo soo adeegtay, kana waa noo soo qabatay, kana waa noo soo qabatay. marka waxa dhan soo tirisid u yar daba dhig, xabadanna waa ka tagtay. hadii laga marsan waaxta xabadan yarna waad ilowday si uu bari toole xataa u dadaalo. kana waad ilowday. telefonkii baa ka jawaabina. marka salaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaalo meeshaad naga soo wacday iyo magacaaga allah ku xafido. والله شكري كرمك. shukri denmark, allah idinku xifdiyo. soo dhawo shukriyey. وأنا والله شاق بيا يهبو. ها ما شاء الله. soo dhawo. ها وائل السلام اللي بدينا وما شاء الله برنامجك على أوطان. ilaahay idin salaamo. reer denmark waa la idiin soo socdaay waaye. ها نرى ما هذا الشيء قو وحا أنا به لها قفكي هدوبة معناها هدي جعل شيء إنه وحكو لقبته أو محي هذي لكن أسوي واركم هذا ديك وحي وحدك أما أديك بينا تجي لحسن تهيبه أما وقولها أنا ولي قف وحلا مقابل ما أنا أركين قف محي هذي صلاة أو كلاتا أو كلها محل صوبين كرا يعني وحكو لي قف تجي لحسن ماته حداد ها إنا لقبتي إنه وحكو لقبتها هذا وباهنتها وشيكت ما يعاوز أما وباهن لا إنا يعاوز أنت ميلها إسكجي جوكتي معناها حوق هذا وباهن هاي أتكود هذا ومركز وكو أركم أنا قفتي تلعسان أو مركز تأخذته إنا هذا وحلا لقبته ومربته ما حالة شبنا مركز أبدك أمستيدو أنت هذا وباهن مركز لا ده أنتو وحكلا كوفها ملا قفتنا أول مرة بيستجا أمس أظن يد هذا ooga baahan ama maxay caruurtii ku mashquulinayaan ama xamla ama ana seksta xoogtiisa ugu baahan. shukri aad baad ugu mahadsantahay. su'aal fiican weeyaan. kulli hibana waan u daynay ka jawaabi. waxaan anigu fadal hibo. bismillaah haddaan ku hormaro waxaan dhihi lahaa shukriya ilaa khayr ku siiyo. horta waxa ugu horeeya horta wax lagu xamili karo waa sabarka, in la sabro. wadada sabarka بغير حساب بالوغ أبل مريا سو ما قفك بلادن مركز صبر بارتو لو باهي إلهي هكو فضيد إن شاء الله. تكالي وحال الربا ولا وحا جرتي قبض نينكيغ وحي كربتي هل قل أو أقل كميدة إنو رنجي أمريا ورنجي هيو ويكو كرويدي شقادا سينو قبطو. لكن الدون كان مالي والبقشن كو سارة مالي والببعض قشن كو قادة برنان كو سارة تاسي ما دوايس لكن قل كاينو سو رنجي هيو ولو كرويهي way dhibsatay gabadhii. marka
nin bay u tagtay waxaan ka saacida oo counselor camal ah sideen maxaan yeelaa bay oran jirtay marka wuxuu ku yiri iska ilowtu ku qaban waayay waxaad ku mashquushaa un xabada yar kaliya ku qabto xabada yar kaliya un leh ما شاء الله ما أنت ناقشنك وأنا قصرت والله ما إلوبين ما شاء الله إلى خير كسي وهندروات صارت وهند يسكسك بوري قل كاس بالكامل يسكسك صح رنجيسة هبيسكم مشغولين رايت ناو لكن واحد أباء ما أنت قدام كعل عليسا بونبوني أو ويني أو وحوين كدك وحي يراو قبطي كدي بحضر كدونتا يسقى يوفضوا ذاتي ونسمي قبل مركي سيدي وسميسي بوق دم بالغ قرق صداس markay sidii u samaysay uu sameeyay qolkii uu rinjiyay wixii ku adkaayay oo dhan way u fududaadeen qofkan bilaadanka qori lagama qorin waxbuu diidan yahay qaab buu diidan yahay amba waxbuu ku mashquulsan amba muhiim ba uma arko marka adigu fahan meeshuu ka imaanayo waxa ay u dhibayso waxaan fahan inaad u baahan tahay inuu ku caawiyo waad u baahan tahay way muuqataa marka bal la fariiso oo la hadal baan anigu oran lahaa oo u sheeg hadduu ku caawin lahaa isbedelka inta laga reerka ku dhici lahaa hadduuna ku caawinu hawshaas kugu daayana culayska ay adiga ku keenayso ilaahayna la talaa khayr Allah ku siiyo waxaan u maleynayaa in si fiican hiba khayr Allah siiyo ay ka jawaabtay shukri waxaan ku dari lahaa kaliya dabcan telefoonka lana ku jira yarasug walaal insha Allah waxa jira السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أولا مقعاقي إيو ميشاد نقصوا وعضي إن شاء الله وأن نقوم دونا جوابتي شوري عن سينا إن شاء الله سودو ولا لا؟ ولا الوالدو هاي مقعاقي وحاضر زينب شعالي زينب شعالي سودو ولا لا؟ حقا نقصوا وعضي؟ حقا يا ساوث أفريقيا ولا ساوث أفريقيا إلهي إذنكو حفظيو هيه ولا خير كان وكاوات كنا بارك الله فيك aad baan kaaga mahad celinay ducada aad nooga soo dirtay South Africa walaashay adiga iyo walaalaha joogaba Ilaahay idinku xifdiyo sharta iyo dhibaatada ka jirta dhulka qaar koodna Ilaahay idinku ilaaliyo insha Allah walaashay shukri waxa jirta runtii qofku reference buu wataayo waxa dhici karta meesha uu ku soo koray iyo sida uu wax u arko ma nafsiyaadkiisa in waxa dhici karta qofkani uu isagu wax badan uu qabto oo uu active yahay mararka qaar kood waxa dhici karta qofku sida uu isagu u fikirayo in la noqdo in uu ka raadinayo qofka kale in uu noqdo reference ka laftigiisu wax badan ayuu sheegaa qofku meesha marjica u ah waxaan se anigu ku talin lahaa insha Allah sabirka ka bacdi yaana in qaab aad ugu tilmaanto oo u sheegto oo uu arko waqti aad iska qaadani processi laakiin ugu dambeynta wuxuu arki uu fahmi in aad u baahan tahay garab oo isaga laftigiisu uu garab u baahan yahay marka haddaan ku noqdo arrintii gabdhaha aan rabay inaan u sheego oo dhinacan ka soo galaysa gabadhu marka ay hadal wanaagsan ninkeeda ay ku tiraahdo raadka ay ku leedahay hadalka wanaagsan ragga waxay ka dhigtaa waa transformational yaana qofkan dhan dabiciisay bedeshaa waxaa jiray gabdhaha telefoonka ka soo hadlay khayr Allah siiyo gabadh baa maalintii dambe ayay feedback noo soo celisay waxay tiri anigu waxaan u arkay la shukr ala alwaajib inay tahay oo ninkani wuxuu iska qabanayo hawshiisi waajibkiisi guriga lagu lahaa inay tahay marka de ama hadduu qabto iyo haddii kalaba kuleel iyo qabow midna iguma haynini waan iska dhaafi jiray tiri laakiin waxaan sameeyay tiri markaan maqlay casharkan in marka uu beerta jaro aan idhaahdo khayr Allah ku siiyo adduunka adiga maartay ugu sareeyo waan noo shaqaysay gurigii baad noo qurxisay waxay tiri ninkii waxaan arkaaba isagoo dhalaalayo nuurayo isbedelay oo maxaa dhacay tiri effectiga arag isbedel kaliya ma shaqadii baan ka arkay wax qabadkii uu siyaadiyay tiri intuu qabanayay ka badan buu qabtay been ma hawshii culayskii aniga igu dhacay inta badan ka yar baa igu soo dhacday tiri hadda marka natiijaan ka helay tiri hadalkii wanaagsanaa marka gabdhaha halkii hiba ka tiri raggu hala qabtaan gabdhaha hawsha oo garaha u noqdaan gaar ahaan inta galbeedka lagu nool yahay in dhulkeeni waxa dhici karta inay jiraan dad isgargaara waliba dhulkeeni anigu hadda markaan Muqdisho soo tagay wax badan baan soo arkay runtii
waxaan oran lahaa laftigeeda waa loo baahan yahay casrigii hore lama joogo casri cusub baa la joogaa casri ay rag iyo dumarku wada shaqaynayaan ayaa la joogaa waxaa loo baahan yahay yaanan reer Africa laftigooda waan u sheegaya gabdhaha maaragtay inii khidmaynaya ha loo naxariisto oo waliba gabadha loo khidmeeyay gabadha u khidmaynaysa ee guriga raashinka u karinaysa wax u sameynaysa si macaan oo naxariis laha hawla hadasho oo hala karaameeyo khuluq islaamka lagu gabdhaha maaragtay khidmada inii qabanay qaraashida aad siinaysiin uma dhigato shaqada ay ku qabanayso marka waxaan oran lahaa dadka galbeedka ku nool ma haystaan khidmada iyo maaragtay dad wax u qabto oo caawimaad ma haysto labadiina marka isku ah laba isku maaragtay iscaawinay waxaan jirtay hebay marka way kala duwan yihiin jaaliya maxaan ku raday jiilashu yaani jiilashii ku soo koray Afrika iyagoo reerarle halkan yimiday taban wada akhrin doontiin waxbaan ka qoraynaa reer Switzerland waan la wadaagay arinta ninka Afrika markuu reer ku lahaa soo guuray galbeed yimiday galbeed ku sii noqday aabo ama awow kuba noqdayba statusku hadda leeyahay gabadha Soomaaliyeed ee reer ku lahayd Afrika ee galbeed timiday kuwa mayane ee iyagu halkan aabo ku noqday galbeed intay ku koreen intuba nafsiyaad kala duwan iyo dabacaad kala duwan iyo aragtiyooyin kala duwan ayay leeyihiin waxaa isbedelay biyada ay ku nool yihiin waqtiga ay nool yihiin nafsiyadooda way isbedeshay waxa loo baahan yahay marka in la qabsado la fahmo la isku dayo waaqica iyo waqtiga la nool yahay sidee loo noolaada waa farsamo waxaan aad uga cudur daaranayaa dadka qaar kood marka aan ka hadalno arinta koorsooyinka waxay yiraahdaan anaga gaalmaano wax noo sheegaya sunnaha iyo diinta aysanna waxaan weydiinayaa insha Allah sunnaha intee ku dhaqanaa gurigaaga sunnuhu intuu ka muuqdaa hadalka macaan quraanka ku faraye inteed ku hadashaa hadal macaan waa challenge iyo taxaddi qofka yiraahdo sunnah ku noolahay waxaan ka codsanayaa inuu dhab ugu noolaado sunnaha السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. مقع عاقي ماشي أنا قصة وعدي التلفزيون كان يسكت قام إن شاء الله. ولا ما كنت هذا أنا سوالي codkaagu xoog buu u sare u kacsan yahay marka hoos yar insha Allah u dhig khayr Allah ku siiyo si aan ku maqalo iigu soo celi Zambia ilaahay idinku xifdiyo haye magacaaguna caynaansho ilaahay idin barakeeyo akhi soo dhow آمين آمين علي وعشي وما يبارك وفرحنا بالله إلهي بركة وبرنامج كويس والعمل أكاد إذا كان يومين أو في حي ما دام المسلمين على الخير يوم حاسك جهاد وحدي أفكار أو حاسك العالمية وأنا كان على كثير marka qoyad aad u sujin kara waarantis qolahe dad waxa jira buu yiri marka rab waxa jira oo maadaama dad muslimiin ah sida hadaashiin inaan waxa ka jiro kulana qora kisa ayuu caawinaya dad ugu lujin ka dhigan shaqada caawinaysi waa runta ماذا حد كتير دواء دكتور عمل كفر وراي أطلع حاليا على الدين كمان بس كتير مثلا روي صح خلد إنك فاهمه وانفارمنت كون نولي هاي عدو لنولي هاي سيده هي بشيء سداي وصحوي مركب برنامج كان تقريبا ما لا بالفرنسي ساعة عن بمجي سنة بتكون غير أحد أكتر إلهي خيرك سيو عيناش aad ma hadsantahay Zambia Allah idinku xifdiyo insha Allah taala arintaas waa arin jirta runtii saddex qaybood bay hadda inoo sheegtaybo guriga iyo maaragtay saaxiibada iyo bulshada society-ga lagu dhex nool yahay marka mar baan ka hadli doonaa insha Allah taala aad ma hadsantahay Assalamu alaykum warahmatullah Wa alaykum assalam wa barakatuh walaal magacaagi meesha naga soo wacday khayr Allah ولا أميرة أمينة
أميرة umu amiira ilaahay idin barakay xageed naga soo wacday umu amiira reer Swiss ma sha Allah soo dhow ما شاء الله وعنده ويدك نوعين هم بريينيا لا خير قصي ilaahay idin barakeeyo الله يدين بركة كنا ما شاء الله برنامج في عنده ودان insha Allah insha Allah ما شاء الله أنا حاجة يقول لك شقية ما شاء الله وأنا عاوية warkaasaan caawa dhan doonayna fadhinaa waxaasaan fadhinaa duca ما شاء الله يا خير بدنا في وعاوية إن بدن ilaahay oo xifdi dhamaantiinaba ilaahay xifdi sax weey umuuji wallahi la isku muujiyo abaalka آدي أنا قر لأنا aaran لا خير بدنا فيه aamin hono سني aamin يقول لك كتابه aaran wallahi umu amiira waxaad i xasuusisay safarkayga ugu dambeeyay aan ii imiday Zurich waxaan la joogay maalin maalmaha kamida si fiican noo soo dhaweeyay wadaad la yiraahdo Cabdalla Saciid ilaahay caafimaad ka wadkeeyo guriga dhan isaga ka shaqeynayay markaas xoogaa waxa yara qabtay wadaadkan ma sha Allah sidiisoo kale ma noqotid ilaahay barakeeyo ustaad Cabdalla waa ku salaamay Allah isii raashinkii noo soo dhigay miiskuu soo sharaxay waxa dhan si fiican xataa maalintii carafo aan Soomaaliyeed ka horeysay dhakhtar buu ka yimiday uu ka soo baxay oo baaragtay masaajidku noogu khidmeynay ilaahay barakeeyo waa runtii waa wax lagu dhargo in wax la isla qabto umu amiira aad baan kaaga mahad celinayaa geesinimada iyo fariidnimada iyo maxaa ku dhahday kartida inta telefoonad soo qabsatay caalamka oo dhan inaad u sheegto inuu ninkaagu ku caawiyo uu ku garab joogo oo aad u ducaysana yaani waa waxa aan sugaynay runtii inaan maqallo waxa aad loo faafiyaa oo runtii niyad jab ah ama dhaweynaa sheegay dhibta iyo problemka negative kan sheegna inta badan waxaan rabnaa marka walaalaha waxaan ka codsan lahaa hadayna maqlayaan inay soo wacaan oo khayrkii iyo quruxda iyo wanaagga ay noo sheeg leedin cawri ma insha Allah ilaahay baa idin barakayni السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. walaalkii soo dhaw magacaaga meesha nagala soo hadashay. iigu soo celi si fiican kuma maqan iga raali noqo walaalkii. Nairobi. haye. جزاك الله خيرا واكي محمد نقول دريسة والله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله فريد جزاك الله خيرا وحوناكس هذا واسطة wax lagu farxo weeye saaxiibadaada ka agdhowna tusaale u tahay adoo Afrika joogo wali man ha nagu salaan iyagana iyo xaaskaaga insha Allah gaar ahaan xaaskaaga aad nagu salaan waxaan insha Allah ta'ala aan ka codsanaa walaalaha inay khayrka faafiyaan oo la sheego oo quruxda la istuso oo aan faal-xumada iyo burburka kaliya aan la faafin qodobkaasi waa nala tagaad moodaa qodobkii u dambeeyay ها عليكم السلام ورحمة الله سعود ولا شيء ما قاعد مش نقص وعدي. والله ما كعوة أنا سوى واحد دوني نمبر كشيء فمراه ذكر يا حد يكون كل ما يبرنامجك. أي استديو قصوا ولا شيء ولا هذيك تها خير لك شيء. معك بس تسوي هذا سوى. تلفون استديو قصوا عليني ها هذا ربطه أديك على فيسبوك أنت قشوا هابي مارج أكاديمي وأتكلم كرت نمبر كيجو كوكرني هاي. هذيك الاستديو نمبر كيسة دوني نمبر كيسة حكي لك هنا عدي له السؤال لو يجيني هيواك هلكا كقرن هلكا كفيس ولا شيء خير الله كشيء إيه شاشة ما كون موجودة ماي أي شاشة ده كأركي دونتا إن شاء الله تعالى هذيك لهدو تكسر علي إن شاء الله مركان كبحنو لمبر كوالا وسين دونا بارك الله فيك qodobkii shanaad ayaan ku soo xidhaynaa insha Allah waqti badan nooma dhigna waan soo dhameynaa caawa laakiin su'aalaha waxaan rabnaa idinka laftigiina inaad ka soo jawaabtaan barakallahu fiikum qodobkani waa qodob hibo guriga marka la fiiriyo la eego lamaanaha noloshooda waa qodob uu Ilaahay meel sare saaray meel sare oo cajiib ah aad loogu fiirsado runtii qodobkani casharka iyaga aan meesha aan dhigno
online ka aan ku dhigno qodobka casharka ugu dambeeya weeyaan waxaa la yiraahdaa the art of intimacy lagu soo khatimo koorsada ku codsan la walaaluhu inay soo raadsadaan koorsada macluumaadkeeda insha Allah the art of intimacy qolka hurdada iyo qurxintiisa qodobka shanaadi waxa weeyaan istaabashada isku soo dhawaashaha in la istaabto in la isku soo dhawaado sababta la isku guursado maxay tahay in la isguursado haddaan la istaabanaynin oo la isku dhawaanaynin qiimo ma samaynayso waan ka xumahay runtii aad baan uga xumahay innagoo muslimiin ah hibo annaga oo ma aragtay sunnadii qurux badnayd ee Nabi Maxamed alayhi salaam annaga haysan annagoo kitaabkii quraanka ee waxyigii soo degay haysanna inaan qodobkan dayacno dad badani waxay ka dacwoonayaan ay ka ashkatoonayaan qodobkan walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa rag iyo dumarba dadka reeraha lahow dadka aan reeraha lahayn qodobkani waa mid aan ku dhiiri galino in ay helaan waa nicmad ka maqan dhalinyaradu inay guursadaan dadka gurigii hore uu ka xumaadayna inay guri kale oo wanaagsan ay sameeyaan aan ugu yeedhno weeyaan qodobkani waa maxay waa qodobka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna cilmi badan ma meesha ku jira hibo aayada quraanka cilmi badan baa ku jira la isma khiyaami karo oo been la isku sheegi karo oo la isma dili karo oo la isma handadi karo oo la isma xumayn karo jirka dharkaagu Ilaahay ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala waxaad isku tihiin baad isku tihiin sidaanad hal isugu noqoteen inaad istaabataan oo ishagaraysaan oo isku dhagtaan oo isa shumisaan oo madaxa iska shumisaan oo ilmuhu xataa ay arkaan idinkoo qacantaysa haysta waxay ku korayaan hooyay aabay si arinta runtii aniga meel sare ayay iga saaran tahay maadaama Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel sare u saaray nabigeena u fiirso Aisha ka waramaysa sallallahu alayhi wasallam ayadoo xayd leh ayuu bowdadeeda tafaheeda nabigu ku seexanayay sallallahu alayhi wasallam ya akhi man nahnu anagu iyaanay markaan kala cararayno oo waliba laba qol aan kala seexanayno oo fadhiga iyo qolka sare aan kala jiifsanayno maxaa la isku guursaday anidi weydiiyay idinka billahi alaykum maxaa la isku guursaday qodobkani raguna way jecel yihiin dumarkuna way jecel yihiin dawooyinka kamid dawooyinka aan bixino ee aan la wadaagno hibo reer Switzerland khayr Allah siiyo reer Zurich markaan waagii dhaweyd u tagay farsamadan baan u soo sheegay farsamadan aad bay uga heleen runtii oo gaar ahaan raggu nasiib darro waan u noqon doonaa insha Allah aniga iyo hibo wada soconaan u tagi doona reer Switzerland insha Allah haweenkuna aad bay u jecel yihiin in loo soo dhawaado in la taabto in la karaameeyo waa boqorad gabadhu waa queen ayada loo soo hoydaa sakan buu Ilaahay ku tilmaamay hunna libaasun lakum balaydi huwa idin yihiin dar ayada la hormariyo yariya waajib lagama carari karo lagama baxsan karo ayada wax loo doontaa oo fiirso xanuun oo dhan ayuu ku dhaca oo fiirsada daal oo dhan ayuu ku dhaca billahi alaykum ila fiiriya meesha soo fiirsada waxaad isdul taagtiin waliba xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabigu markuu ku yiri yaa usama fala wuxuu yiri ummuka thumma man thumma ummuka thumma man thumma ummuka saddex jeer buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka bacdi marafaraadkii buu yiri thumma abuka taa macnaheedu kama dhigana inuu aabuhu qiimo lahayn hooyo ma noqoteen hadduna aabuhu jirin laakiin cilmiga ku jira maxay tahay hameenka ilmo caloosha uu galo ee aad rajaynaysa inaad aaba noqoto baritoole iyaduna ay noqoto hooyo iyada wada dheer marayso wada dheer safar dheer ida xanuunka ka waran Axmedow waa maxay hayday waxaan oran lahaa ma taqaanaa horta dhibaatada ay marayaan maamooyinku iyo hooyadu markay umalayso Ilaahay dambi dhaafa uga dhigo Ilaahay amiin wallahi Ilaahay dambi dhaafa uga dhigo ragguna waxa weyn waxay dib haweenadaadu iyo gabadhu waxay ninkeyga dib ku sameeyso oo dhan maalinta in laga jaraad moodaa ma garatay
ninbaa wuxuu arkay haweenadiisii oo foolanaysa wuxuu yiri waxa isoo marsiisay waxa dib igu sameeyay oo dhanba caawa laga jaray buu yiri caawa laga jaray buu yiri fooshi baa lagaga wada jaray buu yiri waa runtiisa beentiisa ma marka akhiya waxa la rabaa physical touch in labada qof istaabtaan oo jirkooda istaabto jirku waxa lagu leeyahay waa organka ugu ballaaran ee jirkaaga kamid ah beerkaagu kooban yahay indhahaaga brainkaaga heartkaaga waa wax kooban laakiin organka xubinta ugu weyn ee haysatid waa harigaaga skinkaaga marka harigani waxa loogu talagalay in la dhaawac looguma talagelin in la dilo looguma talagelin in la dhibaateeyo looguma talagelin in la masaxo oo maaragtay si yaro raaxo leh loo taabto oo la wanaajiyo oo gacan yaro naxariis leh lagu taabto ayaa la rabaa akhiyo haweeney lagama maarmayo waa la ogyahay ninkuna gabadhuna ninkeega kama maarmayso labadan qof ilaahay baa isku abuuray kaliya noloshoodu yey noqon markay shahwadu u qabato inay dantooda isku dhameystaan laakiin waxa jirta caalam dhan ma fahantay wiilkana gabadhan siba loola hadlay oo la yiri ma aragtay gabadha qiime ya gabadhuna sidaas leeg marka waxa la rabaa walaalayaal anigoo maanta dhan ninkaaga u caroonaya baa hal mar haduu gacanta saas ku qabto aad iloobaysa waxa ka dagaya wax badan jawhar that's why wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u lahaa in agoomaha maaragtay agoonka madaxa loo masaxo wallahi madaxa marka la masaxayo waxa lagu leeyahay jirku maskaxdu waxay soo deysaa dareen raaxo leh oo dhammaanayna leh oo qofku dareemayo in qof la ilaalinayo oo la xanaaneynayo inuu yahay ilmaha aad madaxa u masaxaysid ya haweeneydaada u baahan inaad madaxa u masaxdid haweeneydaada u baahan lagu hayna rixrixdid wiilku u baahan yahay madaxa in loo toojiyo lugaha in loo toojiyo ma aqaan madaxa in la toojiyo laakiin waxaan ka wadaa in loo duugo in maxay hayday waxa soo dhan marka walaalayaal jirkan ilaahay wuxuu ugu talagalay in uu isu heshado inuu isku dhawaado uu isku baahan yahay habeen iyo dharar isku baahan yahay marka xataa waxaad arkaysaa laba qof oo isqabta oo halka kala fadhiga wayba halka u kala fadhinayna isku soo dhawaada next sidaas isku noqda isaga fadhiista waxa weeyaan sariirtii maxaa la yiri kama degi kartid ilaa xaaladu ay xumaato Sooma hadday degtida maxaa la yiri sariirta agteeda jiifso hatta qolka ka bax lagu moodin waa ciqaab laga dhigay inaad sariirta ka degtid waaba ciqaab ma fahanti qofkii xumaan sameeyay marka la ciqaabayo baa sariirta looga degayaa jawharo ma garataan marka waxa weyn waxa la rabaa 70 malaa'ig ayaa ku ducaynaysa leeyri haweenadii ninkeegu markay sariir wada jiifaan dadkan qolalka kala aadaya iyo meelaha ay doonaan raggan meesha ay doonaan iska jiifsanayo iyo waan daalana intuu yiraahdo fadhiga busta iska jiidanayo waxaas waa khalad akhlaaq ma nidaamna ma nololna ma ogtahay habeen kastood haweenedaada ka fogtahay waxa weeyaan waxaad kala fogaanaysiin wax ciida ka badan in leeg ayaad kala fogaanaysiin marka 70 ka malag ay u ducaynaysa bay culimadu yiraahdaan 70 lamid ah ayaa nacdalaysa haday labada qof biduun cudurdaar ay meelahaas iska kala aadaan marka waxaan ku soo koobaynaa barnaamijkuna la fogaaday in walaalayaal shantii shay baan soo koobaynaa shantii shay waa qaab loo wada dhaqmo qofba wax buu jecel yahay qofba wuxuu jecel yahay taabashada badan oo loo soo dhawaado oo maanta dhan la hagreeyo oo maanta dhan la shushumiyo qofba jecel in la shaqeeyo oo hawl la boobsiyo oo u arka jacaylkiina sida ugu muujinaysa qofba wuxuu jecel yahay hadiyadaha iyo in la wadwado iyo in ku meel la geeyo iyo u macnaysanaya in la jecel yahay qiimihiisuba ay inta ku jirto qofba wuxuu jecel yahay kelmadda dayibka hadalka wana kulli horta waa la wada rabaa laakiin waa lagu yar kala xeel dheer yahay qofba waxbuu sii jecel yahay mid baa furihiisa waxan waa fura ma shantuba fura ma wada noqon karaan kulli waa la wada rabaa laakiin mid baa fura marka furaha haweeneydaada hel gabadhay adiguna furaha ninkaaga hel ma hadalka wanaagsan ba aad kugu soo dejinaya ma aragtay waqti inaad la qaadatid buu qiimeeya ma wuxuu jecel yahay ma aragtay inaad u dhawaatid oo jirkiisa aad taabatid mar walba wuxuu jecel yahay raadi
wiilkuna kadalik hal isbaar oo hal isdoon doon hal ishelo waanigi hibo lahaa ma aragtay waa qarxis.com shantan anigu mid aan jecelahay idin sheegi doona idinkuna labadiin isku sheegay insha Allah dadka isla joogan sheegay hadoo la yiraahdo dadka isla joogana waa la sii baranaya oo hadhowto qofka ma aragtay aad nolosha la wadaagi doonto ayaad isku sheegi doontiin arintaas remedy baan sheegay insha Allah meeshii ugu dambeysaan marina barnaamijka soo xireyna remedy-gaasi waxa dawadaasi waxay ahayd insha Allah ta'ala waxaan eri reer Switzerland iyo reer Sweden iyo meel badan waa ku sheegay waxa weeyaan gabadha galbeedka ku nool in badan bay saru taagan tahay saru joogtaa oo ay guriga dhex joogtaa waxay u baahan tahay dhiigeedu hoos intuu wada dago lugaheeda aadaa waxay u baahan tahay bararan lugaha ay bararan waxay u baahan tahay marka gabadhu in lugaha loo masaajeeyo oo maaragtay loo riixriixo loo duugo waxaan marka ragga kula talinayaa gabadhaada inta biyo kulul aad soo qaado biyo fardiiris naar ma aha biyo fardiiris ah ka soo qaado lugaha inaad ugu dhex rido dua la yiraahdo hadda hadday maqlaysaan waabad maqlaysaan oo kulli waad ii jeediin waad fahmi doontiin meeshaan ka hadlay insha Allah gabadha in loo sameeyo labadeeda lugood baaldi loogu rido lugaha 5 daqiiqo markay kula jirto in laga soo saaro insha Allah ta'ala deeta maxaa la sameeyay kareem ama saliid special ayaa jirta oo la soo gado dukaamada maaragtay baa laga helaa loogu talagalay cosmetic iyo maaragtay waxyaabahaas in laga soo gato in loo riixriixo marka loo duugo loo masaajeeyo hadee mar hadaad u masaajeysay oo taabashadii aad bilowday wixii inta ka dambeeyana adiga iska leh caalamka meeshaad aadayso gabigeedo dhan adaa iska leh yani macnaheedu weeyaan waad ila fahanteen ninku muxuu u baahan yahay gabadhu dad baan u sameeyay khayr Allah siiyo hiba maartay laftigeeda dawada soo hadashay ninku banaanka fikir iyo aqli iyo daal bahaya madaxu ka daala inta badan guriga markuu yimaado halka laga hortagayo hadal mararka qaar kood aad u dhib badan wuxuu u baahan yahay fadhiga relax inuu fadhiisto shukumaan ama tuwaal yar oo biyo diirana madaxa in lagu qabto deetana waxa jirta burush yar oo la soo gato in waa mashiin yar in wajiga ilaa madaxa loo masaajeeyo waxa laga hayaa rag qaar kood inay dhaheen haday saaxiibaday sidan iigu sameyn lahayd hameen walba iyo maalin walba maba kala fogaaneen runtii wuxuu dareemay inay u dhowdahay raaxu dareemay markay halkaa ay taabatay meel khatar weeyaan marka dawada insha Allah ta'ala isku sameeya wad isjeclaanaysiin wad isku soo dhawaanaysiin ugu dambeyntii waxaan aad u jecelahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadiisa aan la soo koobi karin ka bacdi inaan u mahadnaqo telefishinkan caalamiga ah maamulkiisa ugu horeeyay Sheekh Mustafa Ali Yusuf Ilaahay xafido iyo walaalaha gadaal halka idin ka soo gudbinaya barnaamijkan Ilaahay miisaanka xasanaadka inuu u saaro fursadan Happy Marriage Academy ay idin siiyeen inay idin soo gudbiyaan aqoontan waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa macluumadeena hiba cuman waxaan aad uga codsan lahaa injineerka inuu ina tuso xafladda qalan jabinta ardaydii qaadatay 10kii aan soo baranaynay jimcaha soo socda hadii alla yiraahdo iyo masaajidka West Ealing ka dhici doona 7 fiidkii insha Allah ta'ala waxaan aad idinka codsanaynaa inaad ka soo qayb qaadataan oo aad si fiican uga soo qayb gashaan si aad u aragtaan faa'iidada jirta insha Allah ta'ala oo uga faa'iideysataan waxaan leeyahay meel ka soo joogtiin walaalkiin Ahmed Jawhar oo idin leh جزاكم الله خيرا سأدنا في ستين معلوماتك هوس كسو قرمي دون إن شاء الله تعالى إيميلك يتلفون نظر نغلصو حريرة فيسبوك هابي مارج أكاديمي نوغسو قدبية طلوين كينا سؤاليهن ونديك الجواب دون إن شاء الله تعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بارك الله اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا